waxaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer saxafi Samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo sanad iyo dheeraad ku jiray xabsiyada Somaliland. Samafale Coldoon ayaa waxaa kaga hortagay duleedka degmada Burco dadweyne tiro badan kuwaas oo watay gaadiid iyo boodhar kala duwan oo ku xardhan yahay halku dhigiyo iyo sidoo kale sawirka Samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon. markii uu soo gaaray goobta ay diyaarka ku haayeen dadweynihii tirada badnaa ee u diyaarka soo dhaweyntiisa Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa la hadlay dadweynihii kala duwanaa ee soo dhaweeyay waxaana uga mahad celiyay soo dhaweyntan ballaaran ay ugu sameeyeen magaalada Burco. waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa soo dhaweynta aad halkan igu soo dhaweyseen soo dhaweyntaas oo muuqaalkeedu ka tarjumayo inta ay leeg tahay heerka ay leeg tahay darajada ay tahay aad iyo aad baad idinku mahad celinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Burco oo aanan halkan ku magacaabi karin mid qof iyo dhinac iyo hay'ad dadkii reer Burco ayaa halkan igu soo dhaweynaya waad mahadsantiin dhammaantiin waad mahadsantiin habeen ay khamiisi soo galayso maanta oo kalena ay 17 bisha afraad ahayd oo ay noqonayso 18 bisha afraad 2019 ayaa wadadan horteena laygu qaaday gaari anigoo ka tiinadaysan waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta gaari baan saarnaa waan xidhxidhnaa keligay baana leewatay maantana waxa weeye reer Burco dhan bay soo baxday waa guul xagga Rabbi ka timid markii ugu dambeysay magaalada Burco aan si nabada ku dhex maro waan idin xasuusinayaa waxay ahayd 13 bishii 12aad 2017 markaas ay ugu dambeysay si nabada ku dhex maro maantana ku xigta oo ay tahay bishu 11 bisha 6aad 2020 Samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon dadweynihii tirada badnaa ee isugu soo baxay soo dhaweyntiisa sidoo kale waxa uu kala hadlay muhiimadda ay leedahay cadaaladda iyo sidoo kale xaqsiinta aadamaha qaybihiisa kala duwan. xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan idiin sheegi doonaan kala soo baxay marka xabsiga kuma aan soo khasaarin faa'iidooyin baan kala soo baxay faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigane ay dadku ka faa'iideysan doonaan ku dhaxalifay jeelka inta ugu yar waa intaas caadil baa dhashay gadaashay عادل عبدالمالك شيخ موسى coldoon عادل waxaan ugu bixiyay inuu cadaalad sameeyo inuu cadaalad ku dhaqo qeyrkii ayaan ugu bixiyay عادل shaygayna wada deeqa waa cadaalad taynu doonaynaa waa cadaalad maanta waa maalin farxadeed waxaan idinkula dardaarmayaa reer Burco reer Togdheer waxaan idinkula dardaarmayaa ahad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin haddii qofka aynu ogolaano in dhexdeena lagu dulmo berri ka maalin aday ku imanaysa aynu garab isiino aynu dhammaanteen aynu xaq garab siino qofka iyo qabiilkiisa iyo midabkiisa iyo ciduu yahay ha u eegine u eeg qofkan xaq ma ku taagaya mise kuma taagna qofkan ma la dulmay mise lama dulmin weligiin aynu dhammaanteen qofka inaga mida aynu muxuu ahaayay garab siino haddii aynu garab siin weyno berri waxa weeye adiga wey waxaad halkan ku jooga sidaad u soo baxdeen waxaad tihiin dadkii intii aan xidhnaa garabka isiinayay mid duceeya mid wax qora mid si uu igu heliya aanan ogeyn ilaahay baa og ilaahay khayraad ku abaalmariyo sidoo kale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo sii wata hadalkii uu jeedinayay dadweynihii soo dhaweynayay ayaa waxa uu tilmaamay in waqti xadirkani uu furay bog cusub taas oo aan macnaheedu aanu ka dhignayn buu yiri in laga aamusayo xaqa wixii igu dhacay u qaadi maayo cidna kula xisaabtami maayo sidana la igu sameeyay oo waan kugula xisaabtamaya ama colaad baan kugu sameynaya ama waxa weeye waan ka argoosanaya waxa weeye bogga waan xidhay waxaanan furay bog cusub micnaheedu waxa weeye aamusi mayno xaqa ka aamusi mayno weligay ka aamusi mayno xaqi ka aamusi mayno se waxa weeye micnihii wixii dhacay ku xisaabtami mayno sidii nabi yuusuf alayhi salaam aanu walaaladii ugula xisaabtamin ayaan aniguna go'aansaday inaan ugula xisaabtamin dadku waa walaaladay ugu dambeyn dadweynihii tirada badnaa iyo gaadiidkii isugu soo baxay soo dhaweynta Samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa waxay u soo galbiyeen gudaha magaalada Burco waxna lagu soo wareejiyay jidadka magaalada Burco iyadoo ugu dambeyntii la geeyay xarunta xafiiska ololaha kaalme kuwan ee Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ka howlgalo wa Khalid Bakeele wararka fogaana raga xorta Star TV Burco.